بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سو دوادا ميلو بقى جوكتين أصحابي جنال كوا قرح دمر أوفيشيال تو كسو دبو هدي أدو عصب تهي أو أي تاي مركي كو هوريسي فضلا محاكا عصانايا وعصي إنا سبسكرايب إسارتو جنالكا لايك سيدو كاليتو كومنتيغو وفكرة دادا أصحاب تقاليقة سو دوادا مركوات إمر لبادبا سينا شير قرية سي اي أصحابتا كالي وقارتو هدي إلهي إدمو أصحابتا قاليقة إن شاء الله كفائديسي وعن أصحابي إن منكوا منكيني هاسمرتينين أصحابي إن شاء الله أصحابتا قاليقة إن محان إدين وضع إن كريم كاسالكاس وحاقي تالو هرود هالكاسيتي إن والوس أو عن صوتمي والوس كعادقة وعن صوتمي أدي أي لوس كهيساتو من ayaa soo tumanaysa loos baa laga rabaa kaliya insha Allah halkaan waxaan ku haystaa maxaa la dhahaye xulbo ayaan ku haystaa marka waa alaabta aan halkaan aad ka aragtiin waa maxaa la dhahaye hurud maxaa la dhahaa sorry asxaabi waa hurud waa loos waa xulbo saddexdaas xabo waaye marka saddex xabo iyo wixii aan rabo inaan ku soo diro hadii Ilaahay idmo waa isla arkeena alaabtan waxa loogu talagalay wajiga maxaa la dhahay in aan ku quruxsano ku cadeysano ku nafaqeyno xulbadu wajiga nafaqa ay u tahay bucbucna way kaaga dhigaysaa way ku qurxinaysaa looskuna si asagana sidoo kaleeto wajiga aad ayuu ugu fiican yahay vitamin ayuu macnaha wajiga ku siinaya wuuna ku qurxinaya ma sha Allah oo looska aad ayuu u fiican yahay marka insha Allah alaabtii ayaan rabaa inaan isku soo qaso huruudana waa ogtihiin asxaabta qaaliga ah in ay huruudu iyaduna ay weytinka ay ka qayb qaadato wajigana waxay ku siinaysaa asxaabta qaaliga ah jaalana way kaaga dhigaysaa weytinna way leedahay oo cadaan ayuu ku siinaya marka alaabtan waa alaab la hubo waa nafaqo oo adiga inta baroobaysid macnaha ama aad soo marka ugu horeey hadaad waliga aad isticmaalin saddexdan shay iyo wixii aan ku soo dari doono bilow ilaa dhamaad inta fiidiyoga daawato waxa soo bisaa bal wajigaaga mari maalinta ugu horeysa bal wajigaaga sida ay noqoto waa arki doontaa alaabtan halkaas waxa iigu jiro qajaar oo aan soo shiiday kadibna aan soo miiray marka qajaarkaas kaliya ayaan hadda ku sii qasanaya biyo kale ama wax kale ma taabsiinayo kaliya waxaan ku qasayaa qajaarka marka asxaabta wada ogtihiin xulbada xoogaa way adag tahay macnaha oo xoogaa waxay leedahay dhaqso ma qaadato biyo hadii lagu shubo iyo hadii caan lagu darabo dhaqso ma yeesho marka saas daraadeed marka waxaan rabaa inaan si tartiib aan u deeqsiyo biyaha qajaarkuna waad ogtihiin oo ama waan wada ognahay qajaarkuna faa'iido uu leeyahay qajaarka faa'iido uu leeyahay asagana sidoo kale asna waa vitamin waxyaabahan waa waxyaabo jikada noo yaalo oo hadana vitamin ah waan ku soo daray hadana waa biyaha qajaarka waan ku soo daray hadana waxaan rabaa si fiican aan wixii inaysan adeeg iga noqonin rabaa oo ay maxaa la dhahay jilaac biyana aysan noqonin oo ay noqoto wax wajiga la marin karo oo wajiga uu ku istaagayo oo san ka dadaadanaynin marka qajaarku wuxuu aad ugu sii fiican yahay walito indhaha hoostooda ayuu aad ugu sii fiican yahay marka wajigana aad ayuu ugu fiican yahay meel uu diidayo malahan laakiin hadii wajiga hoose oo indhaha hoostooda ay madmadow kaaga jiro waxaad isticmaashaa qajaarka marka isku soo duubo dhamaantooda waa wada vitamin oona maxaa la dhahay waan ku soo daray hadana sid adiga ilaa aan maxaa la dhahay ka jilacdo waan ku wadaaya marka alaabtan isku soo duubo waa kulligood waa vitamin marka waxaan ugu talagalnay wajiga in aan maxaa la dhahay nooguna cadaado maxaa la dhahay oo wajigana uu noogu cayilo macnaha hadii wajiga oo xoogaa caata kaayo uu ku cayilinayo weytin qurux badan uu qasinayo alaabtan markaad iska dhaqdo ayaa waxa arkaysaa wajigaaga quruxda uu ku soo baxay marka gadaal ayaan wax kale uga soo darsanaynaa hadii Ilaahay idmo marka insha Allah alaabtan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen hadii aad qurux rabtid
maxaa la dhahay sideedaba qurux waxaa la dhahaa waa fara ku hayn haddii adiga aad maxaa la dhahay wejigaaga ama korkaaga adig aadan naashnaashin wax faa'iido ma lahan waa inaa adiga aad isku dadaashaa mar walba waa inaad isku dadaashaa oo wejigaaga aad maxaa la dhahay wixii u fiican waa dareemi kartaa wixii u fiican waa inaa wejigaaga aad marisaa waxa kareemooyin aan soo wada dhigayno waxaan ku daray hadda kastii u dambeysay ayaan ku daray waxa maxaa la dhahay kareem lasoo dhigo wejiga loo soo dhigo qofba waxbaa naasibo qofba waxbaa u roon qofna wuu u daran yahay qofna wuu u roon yahay marka alaabtan inuu ku anfici doono ayaan rajeynayaa sababtoo ah haddii aad maxaa la dhahay aad oyal tahay iyo haddii aad maxaa la dhahay aadan ahayn qaleyl tahayba uu ku anfacaya laakiin wuxuu aad ugu fiican yahay alaabtan dadka wejiga qaleylka ah ayuu aad ugu fiican yahay wejigaaga haddii uu qaleyl yahay alaabtan aad ayay kugu fiican tahay marka haddii uu wejigaaga uu yahay weji saliid leh intaan ayaa marinaysaa haddii macnaha wejigaaga uu qaleyl yahayna insha allah waxaan kusoo dari doono alaabta dambe aan ku dari doono markii aad ku dartaan ayaad ku isticmaalaysaan laakiin wuxuu diidaya malahan sababtoo ah waxaa ku jiro hadda waxaan halkaas ku haystaa saliidii xulbada ayaan kusoo darayaa markaan saas leeyahay haddii uu wejigaaga uu qaleyl yahay saliidaas aad isticmaalaysaa aad ku darsanaysaa maxaa la dhahaa si uu wejiga qaleylka ayuu u fiican yahay oo wejigaaga uu siiyo qaleylka uga baxo marka haddii uu wejigaaga uu saliid leeyahayna loosku saliid ayuu leeyahay laakiin maxaa la dhahay waxba kaama dhiibaayo haddii saliidaada ay saa'id aysan ahayn haddii laakiin normal ay tahay waa isticmaali kartaa alaabtan haddii aad isticmaashaan ku dhahay runtii aad ayaa wejigaaga u jeclaanaysaa alaabtan markaa maalintii hal mar waa okay way ku anfacaysaa haddii aad awoodid oo aad waqti u haysid maalintii 2 jeer marso subaxiina marso galabkiina marso wejigaaga waxaa ku haynaysaa alaabtan 10 daqiiqo markaa ku hayso waa iska dhaqaysaa oo maxaa la dhahay biyo caadi ayaa isiga soo dhaqaysaa marka muhiimaddu waxay tahay marka in wejiga la mariyo waa kaasaas soo macnaha oo hadda mar sida aan gacanteeda u marinayo ayaad ka aragtiin wuu rooroorayaa alaabta inay nafaqo kaliya tahay waxaad ka dareemaysaa gacanteeda ayuu ku rooroorayaa wejigaagana saas ayuu ku noqonayaa oo maxaa la dhahay inay rooroorto sababtoo ah waxaa ku jiro loos ayaa ku jiro iyo wax yar oo saliid ayaa ku jirto xulbaduna aad ayay wejiga ugu fiicantahay asxaabta qaaliga xulbadu looma gaaro wejiga marka huruudane haddii adig ay huruud ku dhibayso ha isaga badinin waa ujeedin soomaan in maxaa la dhahay gacanteeda weli labadeedii furood ay ku taagan tahay kastii aan mariyey marka alaabtan marka 10 daqiiqo enaf ayay kugu tahay inaa wejigaaga ku hayso 10 daqiiqo kadib biyo caadi isaga soo dhaq waan iska soo dhaqay waa kaasaa biyo caadi isaga soo dhaq markaasaa idin sheegay huruudda weytana way leedahay jaalo yar oo qurux badan ayay wejigaaga siinaysaa wejigaaga wuxuu noqonayaa weji dhalaalayo oo jaalaha oo qurux badan ayuu noqonayaa laakiin haddii aad maxaa la dhahaye istimaankiina maalintii hal mar way ku anficee 2 jeer haddaa marsatana kasii fiicanbo wejigaaga aad ayuu ifaaya u dhalaalaya waa waqti haddaa u hayso marka laakiin alaabtan waxaa la rabaa istimaan isku xig inaa marsid istimaan isku xig haddaa marsato alaabtan natiijadeeda waad arkaysaa waa wax la hubo natiijadeeda aad ayay soo baxaysaa aad u arkaysaa sababtoo ah 4 shay oo aan kala dhicin oo saliiduna 5 ay ku tahay sababtoo saliid 4 shay waxay ahayd waa huruudda waa xulbada waa looska oo shiidan maxaa la dhahay biyo qajaarka waa 4 shay ay isku tahay sax waay marka sorry asxaabay waa huruudda waa looska shiidan xulbada iyo qajaarki iyo saliidii oo xulbada oo gadaal uga daray marka maxay isku tahay 5 shay ay isku tahay marka haddii adiga aad oil tahay shayga shanaad oo saliidda oo xulbada iska dhaaf intaan kaliya marso haddii aad maxanaha wejigaaga saliid oo saa'id uu yahay laakiin iska normal hadduu yahay waa marsan kartaa laakiin waxaa ka daynaysaa saliiddaas
laakiin haddii aad qalayl tahay intaan ayaa isku marsanaysaa complete ayaa marsanaysaa wejigaagana waad ka dareemaysaa wejigaaga sidoo uu ku noqdo oo wejiga qalaylka ah aad ayuu u qurux badnaan doonaa asxaabta qaaliga ah marka asxaabay waxaan rajeynayaa videogan inaad ka faa'iidi doontiin haddii ilaahay idmo maxaa la dhahaa waan rajeynayaa haddii ilaahay yiraahdo in aan videoyo badan idiin soo geliyo oo qurxinta ah dhan walba haddii ilaahay yiraahdo insha Allah marka asxaabta qaaliga ah aan ka faa'iideysta videoga haddii uu ku anfacay waxaan rajeynayaa in aad like-ta iyo subscribe-ka aad iga baqaylin oo aad maxaa la dhahaa ii saarto like-ta waxay iga caawinaysaa in video ama channelkayga hore uu socdo oo dad badan ay arkaan siina share gareeya si asxaabta kale ay u arkaan asxaabta qaaliga ah waa idinka sii tagaya waa anigoo qurux dumar official 2 ah waxaan idinka sii tagaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu